magaceedu waa Khadiija Cumar. waxay u tartamaysaa quruxda adduunka, waxaana ay ka socotaa waddankeeda Soomaaliya. sida aad arkaysaan waa ay ka duwan tahay dumarka kale ee ka yimi qaaradaha dunida. Khadiija Cumar waxay ka yaabisay dadyo fara badan oo shaashada ka daawanayay markay arkeen inay iyaduna xijaaban tahay, dumarka kalena ay qaawan yihiin. bal ka waran adoo waddankaagii ka yimi oo dhex galay dumar fara badan oo ka yimi qaaradaha dunida oo dhammaantoodba ay qaawan yihiin ama dharka ay xidhan yihiin aan wanaagsanayn. wariyadda ayaa weydiisay Khadiija, waxay ku tiri, adigu waad xijaaban tahay waadna aad ka duwan tahay dumarka goobta fadhiya oo dhan. maxaa kuu kalifay inaad adigu xijaaban tahay iyaguna ay bilaa xijaab yihiin? Khadiija Cumar waxay tiri, waa marka koobaad anigu waxaan ahay qof muslim ah oo haysata diinta islaamka. Alle subxaanahu wa tacaala iyagu amray in jirkayga aan asturo oo aanan qaawanayn. Khadiija waxay tiri, anigu waxaan ka imi waddan la yidhaahdo Soomaaliya. Soomaaliya waa waddan dhammaan dadka ku nool ay haystaan diinta islaamka. bal ka waran waddankayga oo dhammaantoodba ay yihiin muslim, haddii aan halkan soo fadhiisto anoo qaawan oo dumarkan soo dhex gala. soo ma qaadanaysaan sawir ah in waddanka dumarka ku nooloo dhammi ay qaawan yihiin? waxay tiri, waxaasoo dhan marka laga yimaado, anigu quruxda waxaan u aqaanaa inay gabadha asturan tahay oo ay xijaaban tahay. haddaba Khadiija Cumar waxay ka tagtay waddanka Kenya qaxoontiyada ku sugan, waxaana imika ay ku nooshahay waddanka Canada. taariikhda waxay u gashay gabadhii ugu horeysay ee iyadii xijaaban ka mid noqota quruxda adduunka. hadda ha ilaawin, dumarka carabtu waxay weligoodba ka mid ahaayeen dumarka u tartama quruxda adduunka. haddana taariikhda kuma arkaysid gabadh carabiyada oo xijaaban oo ka soo qayb gashay quruxda adduunka. hanka iyo qabka Soomaali ayaa dunida u haysataa. waa dhalinyaro caan ka ahaa baraha bulshada, waxaana ay ka guureen magaalooyinkii ay ku dhasheen, waxaana ay u guureen goobo abaaru ay ka dhaceen ee dhulka Soomaalida. waxaana ay noloshooda, wakhtigooda iyo maalkoodaba ay u hibeeyeen walaalahooda abaaruhu ay daashadeen. waxay moobiladooda ku baahiyeen baraha bulshada. Soomaalida malaayiinka ah ee dunida dacaladeeda ku dhaqan ayay ka dalbadeen in la caawiyo dadkan. iyaga la'aantood dadku ma ay arkeen haddii aanay baahin lahayn. baahintani waxay gaadhay Soomaali tiro badan. waxay midmidh u gaadhsiiyeen dadka abaaruhu ay daashadeen ee ku noolaa gobolka Gedo, dhulka Soomaalida. dhalinyartan waxaa hogaaminayay Bilaal Bulshaawi oo hore u sheegtay inuu yahay madaxweynaha barta TikTok. Bilaal Bulshaawi waxa uu horkacayaa dhalinyartan, waxaana ugu talagalay in qof walba oo Soomaali ah oo dhiban oo ay abaaruhu saameeyeen in la gaarsiiyo lacagahan loo soo diray. habeen iyo maalinba ma seexdaan sidii ay u gaarsiin lahaayeen cid walba oo Soomaali ah oo dhiban. waqtigooda, maalkooda iyo wax walbana waxay u hureen dadka Soomaaliyeed ee halka ku gaajoonaya. haddaba si aad uga qayb qaadatid waa inaad ku biirtaa halgankan gaajada lagu tirtirayo ee ay dhalinyartani bilaabeen. haddii aad ku caawin kari weydo xooggaaga waa inaad ku caawisaa maalkaaga. haddii aad ku caawin kari weydo maalkaagana waa inaad ku caawisaa inaad baahisid muuqaalada noocan oo kale ah. dhalinyartani diyaar ayay u tahay inay mar walba garab istaagto walaalahood, waxaana ay mar walba u diyaar garoobeen wax walba oo ku iman kara inay u huraan naftooda. diyaar ayay u yihiin inay wax walba u maraan oo dhibaato ah walaalahooda gaajaysan. waxay faraha ka qaadeen goobihii ay dadka ku midadaalinayeen, waxaana ay yidhaahdeen midadaalo nooma eka ilaa inta ay gaajoonayaan Soomaalida ku nool gobolka Gedo. waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa Bilaal Bulshaawi oo horkacaya tiimkan. waxaan ku leeyahay waxaad qabatay shaqo loo baahnaa xilligeediina tibi.